ururka diyaaradaha Soomaaliyeed oo shir u qabtay shirkadaha ka shaqeeya duulimaadyada iyo arrimaha xajka iyo cumrada isla markaana laga reebay liiska ka soo baxay wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in si cadaalad darre u maamushay shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka iyo cumrada waxayna sheegeen in aan lagu soo darin shirkadihii mudnaa oo muddo ka shaqeynaya arrimaha xajka iyo cumrada waxayna qaadaceen sida loo soo saaray liiska shirkadaha 63 ah oo wasaaradda diinta iyo qaafta ay maanta ku dhawaaqeen waxay tilmaameen in shirkadihii ugu wanaagsanaa laga tagay isla markaana muddo ay u soo shaqeynayeen arrimaha xajka iyo cumrada waxayna tilmaameen in xilligan aysan suurtagal ahayn inay aqbalaan in sidan wasaaradda diinta iyo qaafta ay u maamulaan waxay baaq codar u direen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble ayagoo ka dalbaday in si degdeg ah arrintan ay soo farageliyaan maadaama wasaaradda diinta iyo qaafta arrimo musuqmaasuq ah ay ku dhaqaaqday gudoomiyaha ururka diyaaradaha Soomaaliyeed Xasan Xaashi Maxamuud ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay xuquuq ay leeyihiin shirkadaha Soomaaliyeed oo u gaar ah oo ah wax la yiraahdo 50 freedom oo ah shirkad ajnabi ah inay inta waddan ka tagto iyadoo waddankeedii aan marin ay toos u aado waddan kale taasoo aan ka baqayno diyaaradaha Soomaaliyeed intay xamar ka tagaan inay u aadaan maaragtay waddankoodii meel aan ahayn ay daaragti u abbaaraan waana xuquuq ay leeyihiin diyaaradaha Soomaaliyeed arrinta kale oo cabsida leh waxay tahay isla wasaaraddu in aan maqlayno inay xujeydii u xirtay diyaaradahaas ajaanibtu ay leeyihiin iyagoo luminaya xuquuqdii diyaaradaha Soomaaliyeed arrimahaas aan ka cabanayno oo dhan waxaan rajaynaynaa madaxda qaranku iyo kuwa ay ragga kala sheegeenba in ay dareenkooda u soo jeediyaan Axmed Diini Cali gudoomiye ku-xigeenka ururka iyo waliba Sheekh Cabdisamed Cabdullaahi ayaa dhankooda waxay sheegeen in ummadda Soomaaliyeed ay muddo u soo shaqeynayeen isla markaana aysan aqbali doonin in si musuqmaasuq ah looga reebo arrimaha xajka iyo cumrada waxaan codsanaynaa anagoo ku hadlayno magaca airline-ka Soomaaliyeed magaca xamlooyinka magaca mas'uuliyadda nasaaran oo guud ahaaneed waxaan leenahay arrintan waxay leedahay ka daba tag ha laga daba tago waxa laga qabto dib u eegis ha lagu sameeyo yeysan noqon nin kaligiis gutay ee goosaartay maaragtaa maamusho wixiisa kaligiis yeysan noqon waxay u egtaa arrintaanu nin tagaayo oo daba jabsaday dowladda hore dowladda dambana yacni mataqaanaa aan istiqbaal fiican u samaynayn sanadkii u dambeeyay 2019 xajkii u dambeeyay oo la xajiyay lacaga fara badan oo lagu qiyaasi karo inay yihiin 3 milyan oo riyaal lacag maartay ayaa uga maqan xajka sanadkaas oo lacagii dabaajiga laga hayay lacagii hadda ay shaqada ku qaban lahaayeen lacagtaas faraha badan oo xuquuqda ka maqan wasaaradda xil iskama aysan saarin ama ma aysan weydiin yaa wax ka maqan yihiin ma aysan oran yaa wax ka maqan yihiin ma aysan yaa wax lama aysan oran sidaas daraadeed waxaan ka codsanaynaa madaxda Soomaaliyeed gaar ahaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha adeegan shaqadan meesha taalo waxay u egtahay in maartay shaqada meesha ka dhacday waxay u egtahay shaqo lagu sii daba goosanayo dawladdii hadda sanadkan dawlad fiican oo dawladda Soomaaliyeed u shaqeynaysa ayay u egtahay dawladda Soomaaliyeed oo hadda cusubna mid soo dhaweynaysa ma aha sidaas daraadeed waxaan codsanaynaa arrimahaas in dib u eegis fiican lagu sameeyo gabagabadii warmurtiyeed ee soo saareen ayaa waxa warbaahintu u akhriyay Saleymaan Cabdi Colaad Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu war saxaafadeed ku ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ujeedda cabasho maanta ay taariikhdu tahay 24 bishii shanaad 2022 waxaa shir isugu yimi xafiiska ururka diyaaradaha Soomaaliyeed AOA shirkadaha diyaaradaha shirkadaha travel agenciyada iyo xamlooyinka xajka ka shaqeynayay kula hawlana arrintaas shirkaas oo looga hadlay xadgudubka aadka u ballaaran ee uu ku kacay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo u dhaqmay si aan mas'uuliyadi ka muuqan wasiirku wuxuu soo saaray liis uu ku sheegay inay yihiin shirkadihii loo igmaday inay sanadkan ka howlaha xujayda iyagu maamulaan shirkadahaas oo aanay qayb ka ahayn shirkadaha diyaaradaha travel agenciyada iyo xamlooyinkii xajka iyagoo muddo fog iyo xamlooyinkii xajka ee muddada fog hawshan wax ka maamulayay lagana tegay 80% shirkadahaas diyaaradaha iyo shirkadaha travel agenciyada iyo xamlooyinkii xajka haddaba
habraaci wasaaraddu u martay soo gudbinta habraaci wasaaraddu u martay soo gudbinta qabashada araajida wuxuu ahaa mid ay ka muuqato degdeg iyo dana gaara iyadoo lagu soo koobay 2 maalmood oo aan ahayn maalmaha shaqada isla markaana dhammaadkii laga tegay dhammaan shirkadihii ehelka u ahaa iyo xamlooyinkii travel agenciyadii shirkadihii ehelka u ahalka iyo xamlooyinkii waaweynaa ee khibradda u lahaa qabashada adeegan b adeeg bixiyaasha waxaa dhammaantood sacuudiga kaga xayiran lacag malaayiin ah oo deposit ah iyo kuwa akoonadooda gaarka ah ay banka ugu jira looguna talagalay qabashada iyo socodsiinta howlaha xujayda haddaba lacagtaas oo bixinteeda ay ahayd qaab wadareeda oo bixtada ay u maamulaan iyo shirkaduhu arrintaas waxay tahay welwelka haya shirkadaha waxay tahay wadada loo marayo bixinta ama hidib u helista lacagtaas maadaama habdhaqanka wasaaradda uu noqday sidan c waxaa wax aada looga xumaado ah in wasiirku aanu la socon canshuurta bilaha ah iyo sanadlaha ay airlinesku ku bixiyaan adeega taa oo beddelkeeda aan marnaba la xusin waxqabadkooda iyo xaqa ay u leeyihiin in lagu ilaaliyo waxaanu jeedinaynaa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u jeedinaynaa arrintaas in si miisaan leh loo galo loona eego soomaalidu waxay ku mahmahdaa haddaad aragti nin liqaya rigeesa leh mid seeyoon baa uga horreysay wax badan oo xog ah ayaanu gudbinay wax badan oo shirara ayaanu wada qaadanay wax badan oo aqoon ah oo aan isu leenahay baa jirta waxaanu dareemaynaa wax badan oo kor socda oo khaladaad inay jiraan wabillahi tawfiiq sanadkiiba xilligan oo kale ayaa waxaa soo ifbaxa muran arrimaha xajka iyo cumrada ku aadan oo u dhexeeya wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo shirkadaha duulimaadyada ee arrinkaas ka shaqeeya mararka qaar waxaa caqabado xoogan ay soo food saartaa dadka Soomaaliyeed ee xajka iyo cumrada u tagaya Sacuudiga iyagoo mararka qaar dhibaatooyin xoogan arrinkaasi kala kulma Cabdiraxmaan